Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu walaalahey qaaliga kusoo dhawaada weelkii dunida iyo waxtarkii bulshada. Aniga waxaan ahay Xafsa, janalka aad naga daawaneysana waa Xafsa Janal. Barnaamijkan waxaa idin soo gudbisay isla aniga walaashiin Xafsa Sayid. Soo dhawaada meel walba ay joogtaan. Waxaan Allah subxaanahu wa tacaala idinka baryaa cimri dheer, cibaado suuban oo Allah idin siiyo insha Allah. Waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan. Aniga waan fiicanahay alxamdulillaah. Waxaan inoo soo socday kitaabkeena imtixaanaha ee la magac baxay Baro 100 xadiis. Hase yeeshee intaan u gudagalin mowduuceeni maanta, haddii ay tahay marka ugu horreysay aad janalka booqatay, fadlan subscribe saar. Haddii aad hore nool joogteen, like dheh, u share garee asxaabtaada. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay waxaad naftaada la jeceshahay la jeclo walaalkaaga. Waad ku mahadsantahay haddii aad subscribe saartay. Waa idinka raali gelinayaa codkayga si fasiix haduusan iduusan soo gaarin. Xoogo hergabaahayo codka ayaa iga jaran. Insha Allah maanta waxaan qaadan doonaa darsigeeni 34 biidhnillah. Bismillah. Can Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna Rasuulullaahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam qaal laqinuu mawtaakum laa ilaaha illa Allah. Rawaahu Muslim. Nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu dhahay laqinuu mawtaakum umeeriya dadkiina dhintay laa ilaaha illa Allah. Dadkiina dhintay marka ay sakaraadayaan ay naftu ku baxayso umeeriya oo xasuusiya laa ilaaha illa Allah. Haddii aan faahfaahin dheeriya kasii bixiyo, kutubta fiqiga ayaa ka hadlayso yacni qofka marka ay nafta ka baxayso amba sakaraadka heeyo ayaa la xasuusinayaa. Qof ayaa agtiisa soo fadhiisanaya laa ilaaha illa Allah ayuu leeyahay. Qofkaasna dheh ma dhahayo la'anna wuxuu u maleeyaa hadduu dhaho sidaas inuu isdhaho qofkan dhimashadaadu barabaabo inuu isdhaho. Qof yacni ehelkiis ahna ma dhahayo agtiisa ma soo fadhiisanayo la'anna waxaa laga yaabaa inuu isdhaho kan wuxuu barabaa dhimashadaada dhaxalkii waxaas u sii degdegaya. Waxaa laga yaabaa inuusan dhihin oo iska dhaafo shaydaanka ka xoog badiyo. Sidaa la ajilgeeda waxaa agtiisa soo fadhiisanaya qof aan waxba isku ahayn, wuuna xasuusinayaa, wuu ku celcelinayaa, wuu xasuusinayaa, dhehna ma dhahayo. La'anna waxaa la rabaa hadalkiisa dhanba inuu ugu dambeeyo laa ilaaha illa Allah. Maxaa yeelay xadiiska nabigaaba ahaayba qofkii hadalkiisa ugu dambeeyo laa ilaaha illa Allah dakhala aljanna, jannada ayuu galayaa. Aakhara kalaamuhu laa ilaaha illa Allah dakhala aljanna. Xadiiska nabiga ahaa sidaas. Haddii uu dhaho sidaas oo qofkaas dhaho waa laga aamusayaa ma loo celinayo. La'anna waxaa la rabaa hadalkiisa inuu u dambeeyo. Haddii hadalkan Soomaali kale soo galo haddana waa la xasuusinayaa. Haddii uu dhaho waa laga aamusayaa. waxaa la rabaa hadalkiisa dhanba inuu u dambeeyo. Guud ahaan xadiiskan wuxuu ka hadlayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu dhahay dadkiina dhintay marka sakaraadka heeyo naftu ka baxayso xasuusiyo u meeriya laa ilaaha illa Allah. insha Allah waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahanteen. mar labaad ayaa idinku celinayaa iga raali noqdo codka ayaa si kale wax iga haddii uu si fasiix idin soo gaari waayo. guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkayaga maanta. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkayaga, sidoo kale waad ku mahadsan tahay haddii aad subscribe saartay. sidoo kale waa idinka raali gelinayaa habsanka idinku dhacay aan ciyo idin soo dhigin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.